بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحن سلامة يا داودياشة داون دون برنامج كان كسابسن مناسبة عيد الأضحى iyo arrimaha ka taagan koonfur galbeed ee Soomaaliya. Waxa ay suurtagashay inaan wareysto gudoomiyaha golaha samatan bixinta Awdigil Mr. Axmed Maxamed Luqmaan oo ku sugan magaalada wadanka Switzerland. Marka inaan ka wareysto laba arrimood oo ah munaasabadda ciidda waxa uu ka dhihi doono iyo arrimaha taagan ee cakiran ee ka taagan deegaanka koonfur galbeed ee Soomaaliya. Mudane ku soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم. ومحسنتا ولا عبد القادر maanta oo ay ku beegan tahay maalinta ciid adxaaha waxaan leeyahay muslimiinta meel kasta ay dunida ka joogaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikheer. meel kasta ay ummadda muslimiinta ay ku nool yihiin waxaan ilaahay aga baryayaa ciid wanaagsan, caafimaad iyo bashbash iyo baraare. ku ciideediina allaha samad nagu gaarsiiyo meel kastoo aad dunida ka joogtaan, gaar ahaan walaalaha reer Awdigil iyo koonfur galbeed. gudoomiye mahadsan tahay. ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay anigoo barnaamijka soo diyaariya Cabdiqaadir Sheekh. ciid wanaagsan meel kasta aad joogtaan, ciid mubaarak, kul caam wa antum bikheer. su-aasha kale raba inaan ku weydiiyo waxay tahay arrimaha ka taagan koonfur galbeed Soomaaliya. waxaan arkaynay dhowrka maalmood ee la tegey arrimo oo dastuuri oo ka taagan koonfur galbeed Soomaaliya oo ah in xildhibaano badan maaragtay ay cabanayaan, qaar ay sheegayeen maaragtay in si xun loola dhaqmay, qaar ay ka soo hadlayeen muqdisho ay leeyihiin maaragtay baarlamaanka ma furno, arrimo maaragtay dad la dhaariyey oo xildhibaan cusub. marka sidee u aragtaa arrimahan koonfur galbeed ka taagan oo labadan maalmood ama dhowrkan bilood oo la leeyahay maaragtay dad badan ay isku haystaan waktiga ay ku eg tahay xog ama maaragtay maamulka ama madasha madaxweyne cabdicasiis laftigareen. marka sidee u aragtaa arrimahaas ayaantan ka taagan oo isku haystaan xildhibaanada iyo dad kale siyaasiyiinba ay ka hadleen? walaal cabdiqaadir aad iyo aad baad umahadsan tahay su-aashaada. haddii aan kaaga jawaabo ka aragtidayda oo ay aragnimo siyaasi, oo ay aragnimo nololeed iyo dhaqanka siyaasadda Soomaaliya qaabka ay tahay, anoo si fiican aga dherigsan oo ay arag iyo goobjoog inta uu soo ahaa, waxaad moodaa yacni arrimahan xagga siyaasadda Soomaaliya yacni mid soo noqnoqota inay tahay. mar walba marka la gaaro xilliga uu dhammaanayo terminalka doorashadii madaxweynihii, markay dhammaan rabtoba waxaa bilaabanaya carqaladeyn iyo buuq iyo isdaba jijiid iyo maxay ahayde isdaba carar iyo is-eedeyn. taasoo sabab ay u tahay ku dhaqmi la'aanta shuruucda dalka u yaalla. ummadii waxay ku nooshahay oo lagu kala hagaa waa sharci, kala dambayn, asluub, anshax, xishmayn, qofka weyn qofka yar inuu xishmeeyo, qofka yarna qofka weyn inuu xishmeeyo. qofka siyaasiga ah waa inuu xishmeeyaa wasiirkiisa, waa inuu xishmeeyaa agaasimaha guud, waa inuu xishmeeyaa madaxweynihii, waa inuu xishmeeyaa madaxweyne ku-xigeen. marka kala dambayntii wixii la dhahaya ayaa meesha ka baxay. taasi waxa keenayana waxa waaye ku dhaqmid la'aanta shuruucda. shuruucdii halkaasaa la iska dhigay. maahan koonfur galbeed keliya, waa magac Soomaali dadka watoo dhan sharciga kuma dhaqmaan. waa xeerjajab iyo qajajac, isjijiid iyo isxagasho iyo been abuuris iyo isdibindaabyeyn iyo maaragtay dulmi. marka taasina ummad muslim sheeganaysa, boqolkiiba boqol muslim sheeganaysa kuma horumari karto, xalna uma noqonayso.
anigu hase guddoomiyaha reer Owdigil waxaan baaq u soo jeedinayaa in dowladda koonfur galbeed ay dib u eegto shuruucda ayada gacanteeda ay ku qorto walaa xildhibaanada walaa madaxweynaha koonfur galbeed waa in ay dhowraan xaq dhowraan shacabka doortay ayaga taa micnaheeda waxa weeye haddii ay dhowri waayeen shacabkaas ay xaq dhowri waayaan waa dulmi lagu sii daray waa ayandaro marka hadday shacabkaasi ay dhibaato iyo barakac iyo dhibaato ku timaado ayagaa ka mas-uula guddoomiye waa mahadsan tahay meesha waxaa jira dastuurkana waxaa ku qoran qodobo la raaco waxa uu leeyahay nidaam waxa uu leeyahay maaragtay qodobo sheegahayo waqtiga la dooranahayo ama waqtiga uu ahaanahayo madaxweynaha waa 4 sano saan filhayo xildhibaanada qaar waxay leeyihiin in xilligii madaxweyne cabdicasiis uu ku egyahay bisha December 17 filaya waxaa kaloo jirtay in hadda ka hor waxaan filayaa sanadkii 2021 dhammaadkiisii baan filayaa in xildhibaanada qaar ama xildhibaan inta badan ay ku dareen ay u kordhiyeen ay leeyihiin waxbaan ka bedelnay marka iyo in lama bedeli karo ayaa lasku haystaa marka arrintaas see u aragtaa keebaas leedahay wuu saxsan yahay labada kooxood wallaahi cabdiqaadir mushkiladda soomaaliya oo dhan baa haysataa waa xukun jacayl yacni mushkiladda ugu weyn waxa weye xukun jacayl war waxaan shalay adigoonan waxba ahayn ayaa lagu dhiibo waxa lagaa dhigay qof qiimo leh haddii waqtigii lagu siiyey 4 sano ay kaa dhammaatay sababta aad u sii raadinaysa inaad sii joogto maxay tahay electiona ku furan gal tartan sooma laakiin hala kordhiyo halaygu daro waa tii mushkiladdaasi soomaaliya dowladdii federaalka ee ka dhacday keentay in ciidamo isbahaysta laysugu yimaado oo waddankii qalqal u galo marka haddana ma koonfur galbeed qalqalkaasi la gelinaya walaalayow middii shalay dhacday haddaanan annaga ka cibro qaadan weyno yacni goormaan wax fahmayna anugu ma garanayo laakiin waxaa jirtay in koonfur galbeed xildhibaan ay fariisteen ay yidhahdeen waa kordhinay marka taas ma sharci baa mise waa sharci darro walaalow maxay tahay sharciga ku kordhiyeen ayaga qodobkaas xaggee ka keenay su-aasha taas waa in la isweydiiyo meeshan dastuur ayaa dastuurkan wax ka baxsan dastuurka ma sheegaya in la kordhin karo marka taas uma baahna dad maaragtay sharci yaqaan ah oo in arrintaas ay baaraan ay maaragtay labada dhinac ay meel dhexe isugu keenaan ama ay qolada saxsanna ay gar siiyaan qolada kalena ay gar qaadato soo lama baahna in si fiican loo akhriyo dastuurka inuu saamaxay in la kordhin karo in la kordhin karin iyo sababta xildhibaanadu ay marka ay u kordhiyeen ay u fariisteen ay u ansixiyeen maxay tahay afkaaga caano lagu qabay cabdiqaadir waxa weeye 114 aqaanaa kaa akhrisan maayo ayaa ka horeysa meesha dad sharci yaqaan waa joogaan xildhibaanada laftigooda waa sharci dejiyaal sidee u fahmin la'yihiin nidaamka dawliga ah iyo shuruucdiisa in la xaq dhawo waa qodob haddii aan kuu raaco ereyga aad ka dhawaajisay miyayna joogin sharci yaqaan iyo aqoon-yahan waa joogaan dabcan waddan iyo degmo iyo gobol soomaaliya maantaan aqoon-yahan iyo joogin ma jiraan haddii aanan la rabinba iyaga aan wadanba laga lahaynba oo aan la rabinba arrinkaani inay soo farageliyaan marka waxa weye midigu taagay noqonaysaa xildhibaanadan markay rabaan waa kordhinaynaa bay leeyihin markay rabaan noo celin waa ka noqonay soo ma garan marka yacni meeshii waxa ka maqan wixii kala hagi lahaa waa dastuurka wixii kala hagi lahaa aqoon-yahano iyo waxa loo baahan yahay odayaal dhaqan meeshan inay soo dhex galaan
ماشي maamul baa jira dastuur baa jira maxkamadda sare baa jiraan maxkamadda sare miyaysan kala saari karin koonfur galbeed haddii maxkamadda sare koonfur galbeed kala saari weyso xaggee xal loo aadahayaa halkii ma wuxuu noqonayaa ankujiidow ijiid mise halkuna waxaa jira dowladda federaalka ma laga yaaba marka inay soo firgeliso arrinta haddii ay hay-adaha dastuuriga koonfur galbeed ay arrintan xalin waayaan ama dad kale aqoon u leh oo loo arko inay yihiin laba dhinac dad maaragtay xallin kara la waayo marka soo ma noqonaysa in dowladda federaalka ay soo firgeliso marka maxaa xalaa meesha walaal horta cabdiqaadir khayr allah u siiyo waxa weeye waxaan maqlayay hadda aan akhrinayay mar dhow intaanan qadka soo gelin yacni xeer ilaalinta maxkamadda sare ee koonfur galbeed inay u yeertay 6 xildhibaan 6daas xildhibaan oo ahaa xildhibaano ka hadlay koonfur galbeed arrimaha ka jira waxaa loogu yeeray maxkamadda marka maxkamaddii haddii ayadii ay bilowday howshii yacni oo nidaamka iyo dastuurka oo maaragtay waddanka u yaalla in maxkamadda sare loo gudbiyo wixii siyaasad iyo maamul laysku qabsado oo qaldan ay tahay maxaa u diiday in loo gudbiyo tan madaxweynaha in loo kordhinayo iyo inaan loo kordhinayn maxkamadda sare maa loo gudbiyo waa qodob teedii kale xildhibaanada ayaga haddii ay shalay kordhiyeen afkay ku diidayaan maanta waa qodob madaxweynahase asaga wakti buu leeyahay oo la doortay waxay aga dhammaanaysaa December sida ay sheegayaan marka haddii December intaana la gaarin aan la is abaabulin oo aan la wada tashan oo aan la diyaarinin qaabkii doorashada ay u dhici lahayd ee 2023 dowladda cusub ee koonfur galbeed ay yeelanayso markaa waxay noqonaysaa maaragtay jugjug halkaaga joog marka ma soconayso taasina waxa weeye waa wax maaragtay gobolladoo dhan ay ku wada dhaqmaan nidaam ayaga ay rabaan inay ku dheeristaan xukunka okay siyaasiyiinta doonaysa hadda in maaragtay ay meesha xukun ka qabtaan waxaan maqlay maanta in qaar ka mid siyaasiyiintu ay xamar ku jireen ay magac la baxeen haddana ay isku khilaafsan yihiin marka maadaama dadkii wax xalin lahaa ama raba inay xal gaar iskhilaafsan yihiin yaa ummaddan yaa xal waa ummaddan yaa xal waa dowladdiina maamulkiina maaragtay ayse ummaddii ay maaragtay su-aal ka qabto dadkii kale siyaasiyiintu dhexdooduna aysan meedaysnayn marka xaggee ummaddan xal waa marka cabdiqaadir aad mahadsan tahay walaal waxa waaye mushkiladda meeshan taala mushkilad weyn oo aad u weyn ayaa soomaali haysataa nasiib darra la yidhahdaa nasiib darradaas waxay tahay nin oday oo gabiyo ahaan jiray ayaa wuxuu ku gabiyey hadda ka hor ummad wada karaaniga dunidiiba ma joogto xala cilimaa fiiraa la dhihi jiray nin walbo oo dugsi sare iyo elementary ka soo baxay wuxuu rabaa inuu xafiis fariisto maanta waa laga soo gudbay xafiis fariisasho mid walbo oo maanta maaragtay elementary school ka soo baxay ama high school ka soo baxay wuxuu rabaa inuu wasiir noqdo ama madaxweyne noqdo ama ra'iisul wasaare noqdo marka fa kayfa yumkin yani in ummad dhan ay siyaasi wada noqoto macal gabdhihii hooyooyinkii oo dhan wada siyaasi noqdaan adduunyada xaggee laga arkay waayan daro aqoon la'aanta keenaysa waa ummad hindha xiran yani cadaaladii iyo noloshii iyo wixiiba waa ka fog yihiin waa fawda marka walaal arrinkan su-aashaad weydiisa odayaashan mushkiladda waxa waaye haddii ayaga yani yihiin uqaashii aqoonta lahaa ee waaye aragga ahaa ee ahaa labeentii digil iyo mirifle waxaa laga baahan yahay ayagoo si saraaxi ah gacnahaas haystaa inay gogol dhigaan waxaa dhigaya golaha aqoon-yahanka iyo odayaasha dhaqanka ee digil iyo mirifle gole aqoon-yahan ma jiraan oo koonfur galbeed shaqaynaya
walaalo waa joogaan laakiin ma habaysna mushkiladda taas waa ma habaysna idinka gol ahaan maadaama aad tihiin golaha reer owdigil maxay tahay mowqifka aad ka taagan tahay arrintan iyo roolka aad leedihiin waa qaadan kartaa walaalle waxaa weeye annaga dhowr jeer aan u baaqnay madaxweynaha koonfur galbeed waa u baaqnay guddoomiyaha baarlamaanka waa u baaqnay waxaanu codsanay wada shaqayn waxaanu codsanay wada tashi waxaanu codsanay in la iskaashado xataa lagama soo jawaabin qoraaladaan u qornay soo ma garan marka haddii aan mas-uul noqdo isla weynidan iyo qabweynidan yani ummadda ku baaba'aysa marka hadduu qofkii aqoonyahan yahay haddii hal abuur uu leeyahay haddii uu ra'yi leeyahay hadduu karti leeyahay haddii aanan la rabin in la soo dhoweeyo xaggibuu markaa la tegayaa ra'yigiisii talooyinkiisi reer owdigil waxay diyaar u yihiin inay gogol fidiyaan wakti walba soo ma garan waxaa matala guddoomiyaha baarlamaanka baaq baan u dirayaa oon leeyahay cali fakhi digil gogol ha dhigo cali fakhi waaba ka tegay meesha hadda waxa uu ku biiray baarlamaanka dhexe ee federaalka soomaaliya dhowr jeerna waxaad ii sheegtay inaad la xiriirtay inaad isku dayday inaad la xiriirto uusan kuu soo jawaabin xataa marka muxuu qaban karaa hadda walaalo madaxweynaha xataa la xiriiray wuu ii soo jawaabi soo ma garan marka waxa weye cali fakhi ilaa iyo maantadan xilkii guddoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed isaga haya that means weli responsible marka taasaad ka garanaysaa shuruucdii waddanka ina aanan balansa wax jirin soo ma garan haddii cali uu xildhibaan noqday waxay ahayd inuu guddoomiyaha baarlamaanka wareejiyo automatically xildhibaankiisa ku wareeyo mahayno marka asagaa weli annaga aanuu naqaanaa inuu yahay guddoomiyihii baarlamaanka xildhibaannimo weli kuma ogid annaga taas waa midaan u leeyahay annaga reer owdigil isagaa jooga isagaa mas-uulka ah isagaa mathalaya marka haddii uu meesha ka tegay uusan masalaynin dee hanoo sheega annagaa cid geysanayna meesha xaq baan u leenahay guddoomiye keliya maaha madaxweyne ku-xigeenkii xataa lama hayo koonfur galbeed marka walaalo xuquuq badan baa digil aga maqan koonfur galbeed xuquuqdaasina waxay u baahan tahay in maaragtay la wada fariisto xuquuqdaas haddii guddoomiyihii baarlamaanka uu digil matalaya doctor cali saciid oo wakiil ka ahaa xuquuqdaas uu soo dhicin waaye ama uu ka hadli waaye uu haddana baarlamaankii dhexe kuu fadhiistay marka xaggee xuquuqdaasi laga soo dhicin doonaa ay kula taagay walaalow waxa waaye horta digil marka la yidhaahdo ceelna uma qodna cidna uma maqno waayo andaro aqoonyahankiina cabsi baa ku jirto maadli karaafkii baa jooda kabe siyaasiyiintiina waxay ku mashquulsan yihiin sideen wasiir u noqdaa sideen xildhibaan maxay u noqdaa safiir u noqdaa yacni interest bes marka nin u maqan ma jiro marka waxaa loo baahan yahay xildhibaanada ku jira ee reer owdigil ee ku jira baarlamaanka federaalka inay waddada ka kacaan gacnaha isqabsadaan ay arrimaha iyo dhibka ka taagan koonfur galbeed ay iska kaashadaan ay la kaashadaan walaalahooda maxay ahayde koonfur galbeed waxaan isku xirnayn xildhibaanadii koonfur galbeed iyo xildhibaanadii shabeellaha hoose ee digil iskuma xirna ma midaysna nin walbaba ra'yigoonigu wataa iyo talooyin gooniya marka waxyaabo badan baa isku dhex yaacsan meeshan oo loo baahan yahay bal horta soomaalida waxay tiraahdaa yacni qof in loo gurmado u baahan muxuu kuu qaban waxbana dowladdii koonfur galbeed ayadaa maanta gurmad u baahan waxay hanaan laadahay ee xalin laadahay internal problemka jira ayay xalin laadahay marka sidee markaa waxay ka sugaysaa inay yorokac iyo maarata waxqabad ugu dambeyn maadaama ay waddankii dhibaato xogli ka jiraan abaare ay jiraan waddooyinkii ay xiran yihiin isbaarooyin badan laga soo sheegay deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan shabeellaha hoose
maxaad is leedahay marka sidee lagu xallin karaa khilaafkan dastuuriga ah oo Decemberna waxaa ka dhiman hadda waxa weeyaan waa 4 bil meelaha baa ka dhiman marka xal maxaad u aragtaa oo ay ummaddan ku badbaadi karto si ay shacabka ku hoos nool aysan ugu riiqmin aysan u noqon maroodihii ugu kor dagaalamahaya cawskii hoos yaalay sidee marka shacabkan loo badbaadin karaa ay kula tahay oo talan maxaad siin lahayd maamulka iyo dadka siyaasiyiinta guud ahaan walaale waxa weeye arrin aad murugo u leh arrinkan abaaraha iyo dhibaatada ka jirta horaan dhowr jeer aga hadalnay yacni maanta waxba ma noola xoolo iyo dad wax nool mala waa soo haray male cid u guri badtani ma jirto dowladda federaalku way magacawday waa la booqday madaxweynihii baa booqday ilaa haatan dadkii waa dhibaataysan yihiin marka ilaahaygiis subxaana qaadir ee khalqay ummaddan ayaa u maqan cid kale u maqan ma jirto dowladdii federaalka teedii baa haysata koonfur galbeed warkeedii baddaa somaasi dadkii hantida lahaa ee u dhashay gobolladaasna iimaankii baa ka tegey xataa danqan maayaan sooma garan qurbo jooggii dibadda joogayna damiir ma leh noloshii dibadda ayay ku faareen yacni waxay garan la'yihiin ilaa hadda inay wax isku dardaraan ay dadkooda u gurmadaan marka walaal cabdiqaadir waxa weeye ummaddan ilaah baa u maqan ha loo duceeyo oo maxay ahayde loo allabaryo yacni waqtilxaj baa lagu jiraa in dadkan ilaahay abaaraha ka saara dhibka ka saara ilaaha dhibdhaamaa annaga waxaan u qaban karno horta ilaahay abuuray ma jiraan ilaahay unbaa gacan weyn qof iyo labaad waxaad u diri kartaa mooyaane dadkii oo dhan mooda kaafin kartid marka dhul kastoo soomaali ana abaartu way ka taagantahay taasna waxa keenaya waa dulmiga iyo xasadka annaga dhexdeena arrintan siyaasadda hadda taagan oo cakiranna maxaad kusoo gabagabayn lahayd walaalow arrinkan siyaasadda koonfur galbeed arrinkan maxkamadda sare inay soo farageliso arrinkan ay tallaabo ka qaadda ayadaa laga rabo maxkamad sare tan koonfur galbeed miyamstan dowladda koonfur galbeed waa number 1 hadday maxaade ku fiilgaroodo waa in loo gudbiyaa caasimadda gobolka banaadir maxkamadda sare ee gobolka banaadir ee federaalka heer federaal hadda waa heer gobol marka heer gobol waa inay xaliyaan ayaga dhibkooda markii waa state wey federal state waa marka waxaa jirta jirarkiya jirta waa inay dhowraan ayadoo aan gobolka xal uusan ka gaarin ama uusan isaga go'aan ka gaarin inuu iska gudbiyo dowladda ma u gudbin karto waa inay maxkamadda sare ay gudbisaa kiiskan madaxweynaha ma loo kordhin karaa okay qodobkee qodobkaas yani ayadaas nidaam dastuuri ah shuruucda dalka u yaala ayadaa laga rabaa okay gudoomiye aad mahadsan tahay wareysiga qiimaha leh oo aad na siisay waxaan ku leeyahay aniguna ciid mubaarak ciid wanaagsan dhammaan soomaalida dhammaan waxaan leeyahay kula caam antum bikhair ciid wanaagsan kula caam antum bikhair waxaad meel kastoo ay joogtaan soomaali iyo dhammaan walaalaha dunida ku nool wabillahi tawfiiq waraxmatullahi wabarakaatuh billahi tawfiiq